ka maqan sharci sidiisaba markii la qoraayo ama buug la diyaarinayo ama sharci ha noqoto mis waxa noqoto waxa muhiim ah in tusmo uu lahaado tusmo sharcigan tusmada waa ka maqan yahay oo waxa la bilaabay qodobadii kaliya la bilaabay tusmada faa'iido badan ay leedahay waxa laga xulan karaa muhiimadda iyo qaabka sharciyada iyo muhiimadda ay kala leeyihiin ayaa laga xulan karaa tusma in lagu cadeeyo ayaan soo jeedin lahaa waxa kaloon raacsan lahaa lifaaqa sharcigan ee 34 in nifaaqaas lagu soo cadeeyo waayo dib u eegista iyo wax ka bedelka qodobkaas 34aad in la bedelay inay ku cadaato ayaan jeclaan lahaa si loo raacsado oo wixii laga bedelay iyo wixii la bedelay loo helo hal qodob xataa hadduu yahay nifaaqaas waa inuu ku cidaada sharciga qodobka labaad ujeedada sharcigan aad uma faahfaahsana waa la soo koobay waxaan jeclaan lahaa faahin ballaaran oo siday hadda u qoran tahay mid ka ballaaran dib u eegista iyo habeynta qodobadaba in ujeedada ay ku cadaato magacaabista faahfaahin geli maayo sida hadda guddoomiyaha uu sheegay dooda labaad ayaan geli doonaa laakiin qodobada 17aad iyo 18aad qaabka magacaabista iyo faritaanada guddiyadaba waxyaabo badan ayaa ku jiro laakiin doodayda labaad ayaan u dhiganayaa qodobka 19aad ilaa 20 isku ujeedo waaye in la isku milo waaye ee laga dhigo hal qodob dhammaantood isku ujeeday u qoran yihiin laakiin waxaa laga kala dhigay laba qodob in la israacsho la urursho ayaan jeclaan lahaa ta kale saameynta guud iyo hufnaanta maaliyadeed ee sharcigan qaranka iyo isteediyadaba iyo deeqaha dibadda saameynsa ayuu ku yeelan karaa xafiiskan hanti dhowrka sharcigan ama xafiiskaas saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa mabaadi'da guud in ayadana la jeexjeexo ayaan jeclaan lahaa qodobada kale ee ku xusan qodobo badan ayaan dood ka qabnaa laakiin waxaan u dhigan doonaa akhrinta labaad